السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كل وناكسن دمانتين بميل كستو اكا جوجتان دونيدا أصحابتا مارع ميديا وان سلام دمانتيا كنا سو دوادا برنامجka qalinqaad qaybtiisa labaad waxaana barnaamijka toddobaadkan ku eegi doonaa qoomiyada Soomaalida iyo meesha ay asal ahaan ka soo jeedo iyo waliba sida ay Afrika ku timi xog xasaasi ah ayaan idin ka haynaa soo saaraha toddobaadkan ee barnaamijku waa anigoo ah Khadar Faarax Bootan Cabdirashiid Saciid Axmed ayaa isaguna qayb igala ah aan ku bilowno culimada ku xeesha dheer tixraaca tafiirta aadnaha guud ahaan way isku khilaafsan yihiin halka ay ka soo jeedo qoomiyada Soomaalida dadka Soomaalida inkasta oo la dhaho waxa ay ka soo tafiirmeen qoomiyadaha la isku dhaho kuwishtiga gaar ahaan laba qabiil oo kamid ah qabiiladaasi oo la dhaho Randille iyo Bayso asal ahaan dadka Soomaalida la isku dhaho waxa ay ku nool yihiin geeska Afrika dadkii ugu horeeyay ee soo gaaray dhulka Soomaaliya waxay kala ahaayeen qabiiladan Randille Bayso iyo Qawada dhamaantoodna waxay deegaan ahaan isugu fidiyeen inta u dhaxaysay labada webi ee Shabeelle iyo Juba iyadoo oo qabiil kale dhaho Qawada ilaa iyo maanta laga heli karo qaar kamid ah deegaanada Gondar ee wadanka Itoobiya Soomaalidu waxa ay ku kala nool yihiin wadamada reer galbeedka iyo qurbaha loo yaqaano iyo dhulka Soomaalida barkood Soomaalida badankooda waa dad reer guuraa ah waxaana lagu yaqaanaa xoolo dhaqasho sida ariga geela iyo lo'da Soomaalidu waxay ahaayeen dad ku dagaalama daaqa xoolaha iyo biyaha ama si kale hadaan u dhigno baadka iyo biyaha dhanka diinta Soomaalida waxa awood ku leh suufinimada suufiyada Soomaalida xoogaa waa ka duwan yihiin suufiyada dalalka qaarkood inkasta oo ay jirto kobac ay sameeyeen dadka lagu yeero wahaabiyada maanta Soomaalida dhibaato ay ku sugan yihiin meel kasto ay ka joogan dunida waxaana keenay dulmiga ay isu geysteen Soomaalida boqolkiiba 30 waa qaxoonti waxaana qaxoonti ku yihiin wadamo kale ah Itoobiya Kenya, Canada, Mareykanka, Sweden, Denmark, Finland, Jarmalka Talyaaniga Shiinaha iyo wadamo kale oo aan la qorin hadii aan dib u yarjirlacno qarnigii 19aad oo ahayd xilligii gumeystihii Afrika soo galay Soomaalida gumeystihii Afrika soo galay waa uu kala qaybiyay isagoo qayb dhinac raaciyay ilaa iyo haddana ay tahay 5 qaybood oo dusha iska ilaashada mid kastana ay tahay Soomaali dawlad gaar ah dhisatay Amariyo Hargeysa iyo xudunta Jigjiga iyo xeeba Jabuuti Garissa iyo Xariirte Soomalidan ku kala hayan shanta xarama weetaro ya kala xaseeyo xayda ku kala xiray xayda sanadii 1884 reer Yurub waxay u kulmeen sidii ay Afrika u kala qaybsan lahaayeen waxayna ummadii Soomaaliyeed ka mid noqdeen dadkii loo heshiiyay dhanka Soomaaliya waxa muddo dheer soo jirtay fikradda mideynta shanta Soomaaliyeed ee lagu kala qoqobay heshiiskii 1884 shanta Soomaaliyeed na waxay kala yihiin koonfurta waqooyiga Djibouti Ogaadeniya iyo NFD Djibouti waxay noqotay dal gaar ah Ogaadeniya waxa lagu daray Itoobiya NFD na Kenya halka labadii soo hartay ee koonfur iyo waqooyi mar dambe waqooyigu noqdeen jamhuuriyad iskeed ugu dhawaaqday madax banaani aynu dib ugu laabanay kala qoqobidii markii ficil loo bedelay waxa ka dhashay kacdoon hubeysan oo ay bilaabeen halgamayaal Soomaali sida Sayid Maxamed Cabdulla Xasan Sheekh Xasan Barsame Suldaan Olol Diinle Sheekh Bashiir Nasiib Bunda iyo kuwa lamida wixii la jiidaba oo la sardiyaba markii la soo gaaray 1943 waxaa gobolada koonfureed ka dhashay golihii dhalinyarada SYC ee ka koobnaad 13 dhalinyaro kadibna isku bedelay dhaqdhaqaaq wadani ah ee u ololeeya mideynta xorriyadda iyo madax banaanida dhulalka Soomaaliyeed dhanka kale gobolada waqooyi ee uu Ingiriisku gumaysanayay waxaa ka abuurmay xisbiyo u ololeeya midnimada xorriyadda iyo madax banaanida dadka iyo dhulalka Soomaaliyeed ee uu hormuud u ahaa xisbigii SNL wuxuu waqtiga isguraba waxa la gaaray sanadii 1956 waxaana dhulka koonfurta Soomaaliya laga abaabulay
doorashooyinkii ugu horreeyey ee xukun hoosaad ah, waxaana kuraastii loo tartamay intooda badan ku guulaystay xisbigii dhallinyarada ee SYL, waxaana guddoomiye baarlamaan loo doortay mudane aadan cabdulle cusmaan. ra'iisul wasaarena waxaa loo doortay mudane cabdulaahi ciise maxamuud. muddo kadib markii ay idlaatay xilligii lagu ballamay, waxaana lagu dhawaaqay xorriyadda labadii gobol ee waqooyi iyo koonfur, wallow ay maalmo soo kala horraysay. balse uur ku taallada ayaa ahayd in weli ay sii maqnaayeen 3 Soomaaliyeed oo kala ahaa Ogaadeniya oo Itoobiya gacanta Ingiriiska u geliyey, NFD oo sidoo kale uu Kenya gacanta Ingiriiska u geliyey, iyo Faransa oo waa horaba qabsatay Jabuuti, Faransiiska ka xorowday, noqotayna dowlad iskeed u madax bannaan. halka ilaa wakhtigan aynu taagannahay Ogaadeniya ay ku hoos jirto gumaystaha Itoobiya, NFD ayaduna ay waxba dhaamin oo Kenya ay ku hoos jirto.